dareen la'aanta ku timaada ragga waxaa loo yaqaanaa erectile dysfunction. xaaladan waxay timaadaa marka ninka uu heli waayo dareen ama uusan xajin karin dareenka ku habboon galmo. xaaladan ma aha mid caadi ah inay dhacdo xataa ninka hadduu jiro da'yar ama mid weyn, wayna ka duwan tahay xaaladaha kale ee cillad ku keena galmada sida damac la'aanta galmada ama cilladaha sameeyo biyo-baxa degdega ah. ma wax caadi ah baa inay cillad ku timaado kacsiga ninka ragga ah? xaaladan ayaa si joogto ah ugu dhacda 5% ragga jira 50 sano, 15 ilaa 20% waxay ku dhacdaa ragga jira 65 sano iyo ka badan. laakiin ragga oo dhan waxay dareemaan dareen la'aan xilli yar soo ifbaxda mararka qaar, laakiin waa dareen la'aan jirta muddo gaaban, waxaana sababa daal badan, walwal badan iyo cabidda qamriga. kacsi la'aan ka yar 20% uma baahna wax daawo ah inta badan, hase yeeshee haddii ay ka badato 50% waxay tilmaamaysaa inay jirto xaalad caafimaad oo u baahan in wax laga qabto. sababaha keena dareen la'aanta: si ninka ragga ah uu u helo dareen ku habboon galmada, waxaa loo baahan yahay in dareemayaasha xubinta ay si wanaagsan u shaqeynayaan, in dhiig ku filan uu gaaro wareegga dhiigga ee xubinta, in xididada dhiigga ay ku hayn karaan dhiig gudaha xubinta, in ay jirto dareen kacsi ee ka yimaada maskaxda. haddii ay jirto wax faragelin ku samayn kara qodobadaas, ninka ragga ah ma heli karo dareen buuxo oo ku habboon waqtiga galmada. xaaladaha caanka ah ee sababo dareen la'aanta waxaa ka mid ah cudurrada saameyn ku yeelan kara qulqulka dhiigga sida xididada dhiigga oo xirma, cudurrada neerfaha, xaalado nafsi ah sida walwalka shaqada, xishood low, dhaawac soo gaara xubinta, cudurrada joogtada ah. waxaa kaloo sababi kara kacsi la'aanta sidoo kale daawooyinka qaar. maxaan sameeyaa haddii aan qabo cilladaas ama aan xajin karin dareenka? haddii aad isaga shakisid in aad qabtid cilladaas, la tasha dhakhtar. dhakhaatiirta waxay sameynayaan baaritaano badan si loo ogaado waxa sababayo cilladaada. mar haddii ay ogaadaan, waxaa jiro daawooyin loogu talagalay xaaladaha kala duwan, laakiin waxaa jiro waxyaabo aad u baahan tahay adiga inaad la socotid, waxaana ka mid ah dareen. inaad samaysid galmo wuxuu ka soo bilowdaa maskaxda ee kama bilowdo xubinta. haddii maskaxda ay ku mashquulsan tahay inay xalliso caqabada kale, ma ahan mid suurtagal ah inay ku fikirto galmo. haddii aad dareentid inaad kacsiga aad gabtay oo aad ka walwashid, waxaa kuugu adkaanaysaa inaad kacsatid. haddii shaqada aad qabatid ay tahay mid walwal badan leh, waxay maskaxda ka mashquulaysaa amridda dareenka. haddii aadan cunin cunno isku dheelatiran ama aadan cabin biyo kugu filan, jirka waxaa ku adkaanaysaa inuu biyo soo saaro. midda ugu muhiimsan ayaa ah inaad ogaatid inay caadi tahay in mararka qaar uu kacsiga lumo, umana baahna inaad kasii fikirtid ama aad isku walwalisid.